waxaan ku soo koobayaa kelmada yar xilligaynu maanta ku jirno waynu aragnaa waqti siyaasado iyo waxyaalo Soomaalida dhexdeeda aan rajaynayno sida hadda meediyaha ama aan ka maqlaynay tusaale waxaanu ku filan madaxdii hadda qaranku waa maqan yihiin madaxweynihii ra'iisul wasaare iyo xukuumadii kulli xukuumadda qayb ka joogta madaxdii horena way joogtaa iyo tusaale waxaanu ku filan bilihii ugu dambeeyay Trump intuu inaga sheegay Soomaaliya dad aan aqoon ayuu baray waxa alla wixii doono ayuu ku hadlay Soomaaliya ka sheegay maanta laba mid baynu noqonaynaa dad sida uu sheegay ah oo aan macno lahayn oo macno ku fadhiyeen iyo dad ah dawlad ah oo Soomaali la yiraahdo oo sharaf iyo karaamo leh labadaas aynu mid noqonaynaa waxaan leenahay faraqa idin dhaxeeya isu tanaasula madaxda hadda joogta iyo madaxdii hore iyo madaxda hadda doonaysa xilka inay qabato wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed iyo sharafteeda ilaaliya siyaasiyiinta taasan leeyahay